الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم. شيخ محمد عوصي توليك إن شاء الله أنت أنا نقول بين شيوخ ذكر سؤال عشان لحرت السؤال عشان كجواب شيخنا وحين سؤال عشان لا داعي ما جرت وحرير وكذا حياة جورك يا إلما هذا اللي تانكول مثلا لبضع هذا لبضع سكوه شيئا إن سنديجان كإلما كل علينا لكن أي وسيلة سكوت أورتان هل تحسب ما وحلا أقول يا شرع جميعا بسم الله الرحمن الرحيم horta guurka maqsadka ugu muhiimsan ee la isu guursado waa caruurta caruurtu waxa weeyaan waa maqsadka asaasiga wey maqaasida kale oo dhan iyo ujeedooyinka kale oo dhan waa tabac isku dhowrsiga guriga isku xasilida waxyaalahan kale martida mudanaha gurigu waxyaalahan kale uu yeelanayo oo dhan waxa asaasi waa ilmaha asaasi waa haddii marka يعني waxa weeyaan la isguursaday laabudda waa inuu ilmo meesha yimaado ilaahay hadduu ilmo idin siiyo subxaanahu wa ta'ala laakiin in la isguursado caruurtiina aan la dagaalanno weysadana aan isku dhowranno maxaa weysada la isku dhowran mid kale weysada la isku dhowranayo waxa qurxiya caruurta weysada la isku dhowranayo caruurta qurxisa noloshan sideedaba caruurta ayaa macnaha wax weeye macna u yeesho oo macaan u yeesho labada ruux haday uu iska soo hortoosaan oo mar walba uu wajigooda isku dhaco oo mar walba ayagii kaligood noqdaan nolosha dhanba waa beelaysaa macnaha macaankay beelaysaa macaanka dhanba beelaysaa saas daraadeed inaaba yani isku degtaan oo isku xasishaan oo isfahantaan oo waxa keenaya oo qayb wanka inaad caruur dhashaan haddii caruurtii loola dagaalamayo bimacnaa meeshan ay ku lumayaan bedelkaad caruurta la dagaalami lahaydeen waxaa idin dhaantay inaad isguursataan isku dhowrsataan caruurtiina dhashaan kadibna caruurtii markaad u baqdaan meeshan meelaan ahayd inaad uga xiro raadisaan yani wax way waa xal aad u fudud waa ilaan meeshan kumana aydan dhalanin kumana aydan dhaqanin kumana qasbanidin ilmihii meel kale looga xiraday karaa nololna aad ka raadsan karaysaa haddaysan noqoto ilaa ilaaba ilmo lama dhalayo ee sheekhu ma la isku dhowrsan karaa hadda waxa weeye bacdu shari ahwan min bacdin waa bacdu shari ahwan min bacdin intii ama zino ama xumaan kale ruux uu ku dhici lahaa haddii markaasi waxa weeyaan habar xereedu ka dari mayso wabillahi tawfiiq waayahay dowladjeedida ka wado sheekh cali waxaan weydiinayaa imisa ayaa la shaqaasan karaa muddadee socon karaa shaqaasiga بسم الله بسم الله على بركة الله شو كان سيجي وقت الله يلا بهانتي سوما إلى أجل غير مسمى غادين يساند شو كان سيجا هرت سيد بروح لله شو كان سي مركز لقاه الله أما حتحسي وحديه لهيت لفظ حراتك هراء كاسي قانادتك هراء شو كان سيجا هرت دين إسلام كا طبعا سان u adeegsanayna si dadka kelmadda leh ay u yaqaanaan isaan nagu adeegsan oo kala duwan tahay طبعا markuu qofkan intuu wax arkoodo uu raadiyo information kana la siiyo kadib markuu information uu hela kadib binaan ala had taqriir amaalaha ka soo gaaray kadib uu ku dhaqaaqo guurku raadinayo uu raadiyo inta way inta marka qofka loo baahan yahay laakiin in diintu ay ma sheegin wax la leeyahay labadan qof ha wada socdaan ilaa ma aragtay yawm diin ama ilaa 10 sano muddo ku xadidan ilaa 5 sano wax ku xadidan diintu meel ay markaa ku sheegta malaha taana waxay ka mid tahay kullama waqtigu uu dib u sii dhaco kullama muddada ay sii dheeraato labada qofood marka waxay ay halis u yihiin inay markii wixii laga baqayay xumidii marka ay ku dhacaan walaalka su'aalo fara badan oo nagu soo noqnoqodaa jira oo ay ugu badan tahay مثلا muddaanu wada soconay kadib
waxaa dhacday in zina timid waxaa dhacday xumi baa timid waxyaabahaas oo dhan way yimideen taana runtii waxay ka timid waxa lagu magacaabo shukaansi sideedaba shukaansiga lagu sheegay marka la icraabo ama masdar ficil hal mar buu dhacaaba yani marka lagu sheegay kelmadan waa isguursanayna waaba dhamaataba shukaansi wax la leeyahay iska socdo process leh xataa kelmadan xataa muqaabil uma baa wax kale iska daawo billahi tawfiiq ما شاء الله سؤال كذا وحنا ودينا شيخ محمد إدريس شيخ محمد إدريس واحد بالكور أنت وحنا هاي داير أول يا قبل عدة ما عدا وحنا كتا سكول احترام ولا شيء قبلها سكول كا عندك تا هي لما أنتوا توحي ليه صاحبه ولا شيء قبلهم أنا قبل ويانه أنا هنا بدان وحوي عندها سكول قبصدي كبعد مركز كيسوى يسام لا يعاين وصاحبه سمجتي ولا كذا ما هو كور أنت الحمد لله كلي waxaan filayaa mushkiladihii hadda sheekh cali uu ka warramayo weeye ama bii'adan aynu ka soo gaarnay bii'adan oo wax badan ay ku dhisan yihiin ama bulshadana la dhex joogo bulshooyinkan yurub oo la dhex joogo saameynta ay nagu yeelanayso taas marka daawadeedu waxa weeye dee in laga fogaado horey baa loo sheegay meelo kalena waa lagu sheegay oo arrinkaas arrin yacni wuxuu la mid yahay beydkii carabiga ahaa oo ninku u yiri alqaahu fi lyami maktuufan waqaala iyaaka an tabtala bilmaai yacni qof baad waa iska biyo ah ceel u dhex riday isagaoo gacmaha ka xiran oo aan dabaalan karin dabadeedna waxaa tidhi waa ku kaasee dabaalo oo biyuhu iyay ku gaarin say u suurtoobaysaa marka gabar ama wiil dhallinyaro ah oo lagu dhex riday waxa aan u jeedno yacni iskuullada iyo jaamacadaha aan arkayno siday yacni xaaladoodu tahay oo haddana la leeyahay yacni is-ilaali waa arrin halisteeda leh calaa kullin waxaan kugula talin lahaa inaad yacni adiga iyo keyrkaaba waxaan kula talin lahaa oo arrimahaasu ay soo gaarayaan in ay haddii ay suurtoobi karto waalidiintooduna la habayn karaan inay guursadaan ama laysu guuriyo wiilasha iyo gabdhaha walow xataa iskuulle ay dhigtaan ama jaamacado ay dhigtaan oo arrinkaas arrin horey looga hadlay weeye oo hadda dib ugu noqon maayo waayo bacdu shari ahwanu min bacdin siduu sheegay sheekhu wey bay noo soo gelaysaa sharta si loo yareeyo haddii ay suurtoobi weydana haddaad dee diintaada ilaashanayso inaad iskaga cararto weye meeshaas oo kale laakiin hadda tallaabada aad sheegtay waxaad moodaa inaad u bilowday khutuwaadkii u horreeyey oo loogu dhici lahaa faaxishada ama khatarta inaad hadda aada cagta saartay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaa xifdiyo wallahu tacala aclam waan gartay in sha allahu tacaala su-aasha kale waxaan ku wareejinayaa sheekh maxamed umal su-aashan sheekh maxamedow ka waran haweeneydu waxay dooneysaa deegaanka waad garanaysaa waa iska adagtahay dumarku hayse ragga inay waxa doonayaan ka maqlaan sidaa darteed haweeneydu hadday damacdo in iska joogto idan guursan si aysan ninka maadaama inaysan adeecayn oo ay sharci ahaan kasoo bixi karayn arrintaas dhib bay leedahay haddii ay dhacdo laakiin inay guursato laakiin ninkii inay adeeci weyso ama ay maqli weyso arrintaasina sharci ahaan labadooda yaan qaataa inaan iska joogo maadaama ninkii aanan adeecayn iyo inaan magaranaysaa guursado laakiin ninkii aan xogaay aan u hoggaansan waayo bismi illahi raxmaan raxiim horta guurka laba gooroba waa laga maarmaan mar walba ruuxu inuu guursado maxaa yeele waa sunnatu lambiyaa nebiguna sal lla alay wasalam saxaabadii yidhi anigu weligay guursan maayo iyo rag galeeto oo iyaguna qaar yidhi weligay hilibka cuni maayo qaar yidhi weligay saxan maayo waa tukanayaa qaar yidhi weligay anigu afuri maayo waa soomayaa markii loo keenay nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam anigu waan guursan habeenkii qaarna waa seexanayaa qaarna waa soo jeedayaa hilibka waan cunayaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii buu nebi sal lla alay slam sunnadayda iyo dariiqaygaa ruuxii naca oo ka tagaay iga mid ma ah buu nebi uri sal lla alay wasalam sunnadiisa marka waxaa ka mid a guurka rag iyo dumarba in la guursado ama masalada ku saabsan haweentu hadday ka baqayso inay ninka ateeci weydo ama ka amar qaadan weydo ama ka dambayn weydo masaladu waxa weeyaan fattaqu llaha ma stadactum fattaqu llaha ma stadactum waa jiraan dabeecad baa jirta haddana yani waxa weye boqolkiiba boqol keen oo boqolkiiba boqol sidii la rabay ku keen
ruux kari kara ma jiro walaa raggaan kari karin walaa dumarkaan kari karin sidaas daraaddeed waxa weeyaan sadiduu waqaaribuu haddii xataa aad keeni weydo 100% dhawee baa lagu leeyahay intaad kari karto la imow intii karana iscelceli markaad khaldantana toobad keeno ilaahay u soo noqo laakiin inaad tidhaahdo anugu maadaama raggiiba aanan xaqoodii gudanaynin ma guursanayo waa khuraafo way taas waana waxyu shaydaan waa waxyi shaydaan sheeko shaydaan way warkaas haddii aad guursan weydo waqtigan fitnada oo lagu jiro waxaa dhici karaysa intuu shaydaanku kugu qanciyo raggii maadaama aydan isyeelaynin ha guursanin haddana dhinac kale inuu kaa soo galo ku yidhaahdo dee guurkii wakaasoo waa kuu suroobi waaye hawshaada siyaabo kale u dhammaysa leanna waxa way shaydaanku tilaabo kuu qaadaya waa ku siraya waa ku khayaamaya iridii khayrku kaa xidhaya markuu iridda khayrka inuu xidhidooda ku guulaysto kadibna wuxuu kuu furayaa jidku isagu rabay iyo iridiisu kuu furaya marka in aad laba gooroba guursato haddaad midkan heshiin weydaan mid kalead heshiin doontaan isceli nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu guursanayey markuu doonay gabadhii maxay ahayd umu salama waxay ku tiri nebi allow waan ka cudur daaranaya nebigaa soo doonay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa dhacay umu salama waxay tiri nebi allow horta waan masayr badnay adiguna waa dumar badanta sidaas daraaddeed masayrkaa faraha badan baan ka baqayaa intaan kugu masayro nebi ilaahayna aad inaan cadaab ku galo inay kala daabay tiri waa midda labaadee caruur baan wataayo haweeney caruur wadataan ah mid saddexaadna way sheegtay nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam amaa masayrkaaga ilaahay baan kuu baryo inuu kaa tegsiiyo oo kaa qaado caruurtaaduna waa caruurtaydii buu nebigu uhi sal lla alay wasalam sidaasuu nebigu ku guursayay sal lla alay wasalam marka lagama yeelin waan masayr badnahay nebigu kama ogolaan sal lla alay wasalam guursaa la yidhi xataa adoo masayr badan masayrka ilahay baa tegsiina marka warkaasi waa khuraafaadka guurka lagaga cararayo laakiin waxaa fiicnaan lahayd haddii aad guurka xataa ka warwareegto inaad is ilaaliso culimmadu waxay dhahdaan guurku mar buu noqdaa laasim oo waajib ah ka tegitaankiisana lagu dambaabaa waa goorma markuu ruuxu awoodi karo haddana uu zino ka baqayo haddaad isu baqayso awoodna aada hayso ama guurkiiba lagu soo doono aadna baqdinna jirto fitna ay jirto xaaladaasi laasim bay kugu noqonaysaa inaad guursato haddaad ka tagtana aathim dembiila baad ama rag ahow ama dumar ahow wabillahi towfiiq طيب سؤاشا كلا الشيخ علي waxay leedahay su-aashaani sheekh cali oo wiilashu ama gabdhaha qaybo ka mid ihi ayagoo xanaqaad ma noqdaan wadanka waqti hore ayagoo waaweyn bay 20 jir ay bom program iska fiirsanayaan in mas'uuliyad saaran tahay in guur laga rabo waxyaasoo dhammaanteedna uma muuqato bal arrintaasi maxay tahay cudurkaas xagee ka yimid bom program caruurta programada ay fiirsadaan waxay soo haystaan weli inay yar yihiin way iska ciyaarayaan marka saa darteeda yani qofku waqti hore ka muuqan jirta inuu mas'uuliyad iyo xil iyo hanaqaadnimadu laakiin wadankan waxaan ku aragnay inay arrintuba xisaabta uga jirin dhalinyaradii بسم الله برنامج كاس waxaa lagu ogaa dadka iyagoo waaweyn Yurub yimid laakiin dadka meeshan ku koray waxay la tahay yaraantii way ku soo arkeen baana TV-ga iyo waa soo harfariistaan wax far badan waqti far badan way soo harfariistaan lacab al-atfal laakiin dadka meesha Afrika ka yimid iyo meelaha ka yimid oo jaaniskan uu soo dhaafay anagoo kale markii meeshan la yimaado wax laga qofka inuu isaga mashquulo wala gartaba marka cudur daar ma haysato laakiin waxay la tahay su'aasha runtii hadii si serious loo hadlo qofku waxa loo baahan qof inuu noqdo qof mas'uuliyad qaada طبعا hadii gabadhu iyadu ay fil 20aad markay marayso xitaa qaanuunka kale westernka markuu leeyahay 18 way qaan gaartay waqtiga waxa loo arkaa qof mas'uuliyad yani buuxda qaadi karta ee la xisaabtamayo marka waxa haboon taas kaliya ma ahana xitaa aanay ku mashquulin hawlo kale ee gurigeeda marka ka howlinayo ama ha noqoto mesela maanta wadan waqti far badan ay siiso baaltooga ama inay noqoto maanta waqti far badan inay siiso hawlo aan loo fadhiin mas'uuliyad ba markaan saaran sida isaga ma aanay ugu banaanayn inuu marka hawlahaas oo kale marka ku mashquulo waana muhiim qofka kobcidiisa waxa ay noqmaha kaliya inuu physically qofka u weynaado laakiin maskaxdu waa inay shaqeyso walaalka nin baa wuxuu yiri mufakkir wuxuu yiri hadii aan u fakarayo haddaan u fakarayo 20 sano ka hor saan u fakarayo haddaan wali u fakarayo idan fi qalbi wuxuu leeyahay aqligay khalal ba ku jira biir bimaana abnormal anahay qof maskaxdiisu ay fiyoodahay bimaana qofku waxa loo baahan yahay markii uu ka baxo marxalad
marxalad kale uu u gudbo in noocan ma marxaladu isbedesho oo xaaladiisu mar walba marxaladda marka la koosado horena waxaan usoo sheegnay dadka markii sociology-ga philosophy ahaan looga hadlo waxay leeyihiin oo muxaadarada nagu soo maray 3 marxaladood baa qofka loo qaybiyaa marxalat al-ashyaa iyo marxalat al-ashkhaas iyo marxalat al-afkaar buu qofka maraya marxalat al-ashyaa waa marka ilmaha yar yar oo 7 jirka 8 jirka maanta wuxuu ku ciyaaraya koob hal soo qabtay koob oo tuuro iyo bombal uu ku ciyaaraya baabuur uu riixa iyo hawshaas ku mashquulsan yahay markii qofku uu 10 iyo 13 iyo 14 uu gaaro aragtay marxalat al-ashkhaas buu gaaray wuxuu isku dayaa qof socodkiisa inuu isaga qalido soo u fariisan inuu fariiso hadalkiisu kale inuu keeno waana researchna wuxuu cadeeyay in qofka ugu badan ee uu qalidayo ama imitation ku sameeyo isku dayo inuu raaco wadadiisa inay tahay inuu yahay marka aabihi laakiin waxa la soo gaaraya marka la soo gaar 16 17 marka la soo gaar wuxuu gaarayaa marxalat al-afkaar waa marka uu fakarayo qofka oo madax uu ka shaqaysiinayo oo mas'uuliyad marka ay saaran tahay waan ognahay fi al-khilaafa al-uthmaniyya dadka da'daas in laga dhigi jiray khulafa inay noqon umara inay noqon jireen oo mas'uuliyad marka loo dhiibi jiray oo waxaan haynaa 15 waxa la hayaa maxamed الثاني waxa la hayaa maxamed السلطان intaas oo dhan waxa la hayaa da'ad sidaas oo kala marka qofka waxa muhiima in aqligiisu uu noqdo aqli marka runtii kobcay iyadu wax weyn oo wax bedelaada kama yani waxay ka bedelaysaa mala qofka inuu barnaamijna fiirsado barnaamij aanu daawantaa muhiima laakiin waxa muhiima qofka aqligiisu inuu noqdo qof aqli aadi yani aqli ballaaran oo runtii aad u fakarayo qofka inuu yeesho wa illa hadii marxaladaadu ay tahay ka ذات المرحله السابقه ay ku soo martay oo wali aqliga aanu kobcin meesha marka waxa jira some sort of abnormality waxa jira aqligaas aqli fadhiya maaha marka waa muhiim in qofku maxay uu la socdo arrintaana waxay la xiriir la leedahay تغييرك شعارك نوع مؤتمرك وإنه قفك بدل حالة مركب وكسبنا حالة كنا نقول بالله التوفيق. جزاك الله خير. الشيخ محمد إدريس الشيخ محمد إدريس أبو الضباب مريو الشيخ محمد وحاد على إن يسنترين حريرك كل حاجة جروب الدنيا إسقور سودان وطن كان وعلوسي هاي سادرت إذا ميسر هبونين مراكزتو إن كقيب قاطان إن فران لينكي أي دعي لهاد إن يكون حريران dadka daayarta doonaya inay isguursadaan arrin waa arintaas arinta labaad in sha Allah maadaama ugu dambayda su'aasha ay tahay gabdho fara badan baa leeyahay waalidkood ma barinsay guriga dhaqan lahaayeen si Soomaali waxa la bari jiray gabar loo diyaari jiray inay guri dhaqdo oo maarta ninka dambayso oo raashinka kariso qaybo badan oo kamid ah lama barinin waxay kamid tahay dhibaatooyinka in haystaa yiri rag الحمد لله موضوع هراء كسابسا أما سؤال هراء مراكزته إن قيب كقاضته يعني أهين سواء فجنتا قبلها يويلشا جوابته حويه ونعم واجبات كذا وحي أنا إلتها يقوى وين هديلة شوقا دول كان يوروب كل مدحدي مراكز مركز توفيقنا وهي مغلى بالأمنا هي مراكز تلمذة waxyaalaha ugu muhiimsan inay tahay ayaan filayaa inay iswaafajiyaan oo isu guuriyaan oo waliba waxa la yiraahdo zawaaj jamaaciya inay sameeyaan oo hal mar 10 gabdhood 10 wiil la isu guuriyo la iswaafajiyo la sahlo iyagu xataa takaaliiftii ay qayb ka qaadaan taklifadii ama kharashkii ay qayb ka qaadaan waxaan kale oo ra'yeenayaa waajibna ah runtii maraakistana saaran dadka jaaliyadaha ama bulshadeena Soomaaliyeed ee meelaha ku noolna saaran inaan ogaano xataa culimadu inay oftootay zakada in la wax laga siin karo oo ay ku baxdo sidii kharashka guurka ay u heli lahaayeen wiilashii gabdho caalam islaamina meelo badan bay ka dhacdaa oo in gurigii kharashkiisii sanduuqa masjidka laga siiyo oo masjidku uu u furo ama markasku uu furo account gaara uu u furo sidii guurka loo sahli lahaa uu u furo intay meelahaas internetyada faasidka isla aadi lahaayeen iyo chatting roomska kharaabka ah inay iyagu u furaan website
ama ay u furaan meel maaragtay la isku waafajin karo qof walba macluumaadkiisa laga qaadi karo si loo muraaqabayn karo dabadeedna loo sahli karo inay is arkaan reerkii in la arko dabadeedna guurkii sidaa lagu sahlo markaska laftigiisu uu qabanqaabiyo xafladii guurka taas waxaa imanaysaa wiilashii iyo gabdhihii inaan u guurinay kharashkii inaan yaraynay inaynu maaragtay meeshaas muwaafaqo badan oo khayr ay ka dhacday qoysas muslima inaan sidaa ku agaasinay inaan manhajkii islaamiga ah ku toosinay intaasoo dhanba way ku taxaquqaysaa intay meelaha iyagu isla aadi lahaayeen oo maalaha meelo dibadaha ah ay ku kharaj bixin lahaayeen arrinkaas marka aniga waxay la tahay in loo qumo inay tahay waxyaalaha ugu muhiimsanna inay tahay in loo qumo weliba waa jeclaan lahaa towsiya inay ka soo baxdo ama recommendation inuu ka soo baxo mu'tamarkan maanta halkan lagu qabanayo iyo nadwadan oo culimmaduna ay towsiyeeyaan oo ay recommend garayaan markaskan ba haba ugu horeeyo inay u recommend garayaan maraakista kaleetona ay la mid noqoto in la furo qayb qaabilsan guurinta iyo guurka iyo sahlidiisa oo gabdhahana macluumaadka ka qaada wiilashana macluumaadka ka qaada in la furo sanduuq zakawaada oo fundraising loo sameeyo oo lacag loo ururiyo oo sanduuqaas intay ugu yartahay 2 milyan 3 milyan oo karoon lagu shubo lagana qofka shuruud muayana markuu soo buuxiyo ama uu maaragtay shuruudda oofiyo laga siiya kharashkii ku guursan lahaa iyo gurigii iyo kharashkii iyo wuxuu u baahnaan lahaa oo gabdhihii iyo wiilashii intay bannaan ku daadnaansanaan lahaayeen oo mujtamaceenu sidaan u dabargo'i lahaa aynu arrinkaas xallino labadaas towsiyo ama recommendationna waan ugu horeeyaa towsiyadeeda waana rajeynaya la dhaqan geliyo waxaa soo haray gabadha hooyooyinka horta iyo gurigaba waajib baa saaran inay gabadha sii barto siday wax u karin lahayd nuuxa waxaa la yidhi nin baa gabar guursaday marka gabadhu waxay taqaanaa oo keliya wax maba soo baran la yidhaahdo wax karin iyo qaabka wax loo kariyo bahal yar waxaa jirta noodles la yidhaahdo ingiriisiga ama shaciiriya oo baakado yaryar ku jirta supermarketka laga soo qaado mishaarima waxa weeye bahashan baasta yaryar oo dhudhuuban noodles baa la ya waa soup oo kale laakiin baasta yaryar waa baastadaasu hawl badan uma baahna waxa weeye baakad yar baad ka soo qaadaysaa supermarketka biyo kulul baad dabka saaraysa waa ku ridaysaa waxeed oo dhan iyadaa wadata khamkhamkeedii iyo basbaaskeedii iyo waxyaadii kulli iyadaa wadata habasta indonesia waa ka soo saaraysaa saxanka ku soo ridaysaa ninkii markii gabadhii loo aqalgeeyey subaxdii waxay u keentaa noodles duhurkii waxay u karisaa noodles habeenkiina waxay ku cashaysiisaa noodles waxay yidhi kaale adiga wax kale ma taqaanid miya inaa kariso noodles maahane marka waxay tihi wakti uma helin inaan barto karinta waxa weeye islaamihii horena waxay oran jireen ninka waxaa laga ilaaliyaa sanka iyo afka labadaas meelood baa laga ilaaliyaa haddii aad labadaa meelood gabaray adigu hantido ya inaad si fiican ninka hoggaanka ugu qabanayso ayaa hubanti ah bimacnaa waxa uu cunayo iyo udgoon inuu kaa wariyo labadaa arrin unbaa ugu muhiimsan marka gabdhaha in la baro wey weliba waxaan dhihi lahaa koorsooyin ha loo furo haddii guriga uu hawshiisii gabay yacni mushkilooyinka dhacaya waxaa ka mid a tadriiskeenna ama iskuulinka in inagu aynu ku soconno ka muslimiin ahaan iskuulin aan inaga inoo qalmin oo aan shaqadeenna ahayn oo inagu aynaan degsan xataa waddamadeenni marka la joogo gabadha high schoolka waxaa lagu mashquulinayaa waxyaalo ayan weligeed ku intifaaci hayn buugga riyaadiyaad waxaa la siinayaa ama mathematics oo wuxuu leegyahay bahalkan telefisyoonkan waa ka wen yahay waa mathematics baa la leeyahay x iyo plus iyo minus iyo wax miirana mana taqaano koobshahaasay u kariso dayb why not ayaa manhajka loogu dari waayey markii thanawiga ay soo gaarto ama high schoolka ay soo gaaraan say gabadhan guri u maamuli lahayd qayb ka mida maxaa loogu dari waayey haddii inagu manhaj dhiganayno way ama inagu dhiganayno criteria marka waxaan dhihi lahaa calaa kulli xaal arrinkaas arrin muhiima waajib hooyooyinkana saaran way gabadha intay yar tahay in adeega iyo khidmada iyo guriga iyo wax karinta iyo ninka maamulkiisa iyo gogasha iyo kala habaynta guriga oo gabadha iyadoo gaariya 12 jir 13 jir markay noqoto 14 jir gabar gaariya inay tahay gurigeeda ka adag
haddii ay arrinkaas suurtoobi waayey waxaan leeyahay maraakistu shaqadooda ha ku darsadaan inay u furaan qayb macaahida oo gabdhaha arrimahaas lagu baro oo dumarka khibradda u lehi ay maaragtay ugu faa'iideeyaan oo koorsooyin siiyaan sida wax loo kariyo sida guriga loo maamulo qaabka ninka loola hadlo xataa waxaynu u baahnay waxyaalihii hadda sheekh cali uu sheegayay oo beenta ahaa ee laysugu sheego chatinka iyo waxyaalaha laysugu sheegayo been weeye kulligeed wax ka jiraan ma jiraan laakiin midii xaqiiqada ahayd oo ahayd ninka in la baro qaabka ninka isaga loola hadlo qaabka loo kasbo qalbigiisa loo hanto ayaa maaragtay taas ayaa muhiima in aynu barno gabdhaheenna iyo wiilasha laftigooda waxay u baahan yihiin in la baro wiilasha laftigooda yacni qaar badan baa soomaalinimadeeni hore iyo odaynimadii hore iyo iskaga jirtaa waxa weeyeba afkiisaba aan soo marin karin waa ku jecla maanta oo dhan ba islaam